kusoo dhawaataan cashirkeena physics-ka chapter koobaad form 4 waxaan qaadanaynaa maanta example-ka 1.3 oo ah example-ka saddexaad ee chapter-ka koobaad waxaan leedahay inta la siiyay x displacement-ga from start point to waa 20 cm stiffness-ka mooladu waa 100 newton per meter meesha la geeyay ee la kala bixisana waxa waaye 21 cm waxaan leedahay force-ga marka si loo kala baxsho 20 cm ilaa 22 cm macnaha 1 cm oo kala bixina si loo helo hadday moolada stiffness-keedu 100 yahay waxaa sheekanaa force-ga loo baahan yahay in la adeegsado waxaan leedahay force waxaa u leedahay main scale of x oo ah force-gu inuu directly proportional displacement waxaan leedahay marka force-gu maadaama intaas ku helo k danada waxaa waaye 100 newton per meter oo lagu dhufan leenahay waxaan leenahay x-kana waa 20 cm oo loo socdo laga jaray 21 cm laga jaray 20 cm f waxay la mid tahay 100 newton per meter lagu dhuftay labada dhaqaaqna waa 1 cm loo qeybshay 100 sababtoo ah waxaan rabaa mitirkan in la baxsho si newton loogu soo haro waxaan leenahay force wuxuu la mid yahay 100 newton per meter oo lagu dhuftay 1 loo qeybshay 100 waa 0.01 meter meter to meter f waxay la mid tahay leenahay marka 1 times 10 to the power 2 newton times 1 times 10 to the power minus 2 سادرات waxaan leenahay f waxay la mid tahay 1 times 10 to the power 2 minus 2 newton f waxay la mid tahay meesha sira ka soo haray 1 times 10 to the power 0 newton waxay la mid tahay 1 walba soo yihiin power-kooda markaana waxaan ku jiraynaa example-ka 1.4 given la siiyay waxaan leeyahay waxa la isticmaalaa force 3 newton x initial-kana waa 45 not x initial-kana waa 40 cm x final-kana waa 35 cm waxaan leenahay marka haddii x initial-kana uu yahay 40 cm x final-kana uu yahay 35 cm waxa soo saartaa stiffness-ka mooladan marka waxaan leenahay mooladan waxa u soo comparison meeshana ka arki kartaa distance labada distance final yahay marka waxaan leenahay k waxa lagu helaa f alpha x tan waxaan iskeenay inaan dhahdo x raadin delta x waxa lagu helaa 35 cm oo laga jaray 40 cm waxaan leeyahay minus 5 cm waxaan u bedelaynaa meter waxaan leenahay 1 meter wuxuu u dhigmaa 100 cm centimeter to centimeter tan waxaa ka soo baxay 0.05 meter minus ka wuxuu yahay marka opposite direction-ka oo ah kan oo 0 ah meesha hadii laga aabiyariyaasha waa minus marka distance ku laakiin minus ma noqdo 0.5 meter aan leenahay k waxaa lagu helaa marka f to ah 3 newton loo qeybshay 0.05 meter waxaana la mid tahay 60 newton per meter waxaana la weydiiyey su-aashaana k hadday la mid tahana lahay 20 newton per meter x kuna ay tahay qalabdaxanu 25 cm oo u dhiganta 0.25 meter waxaa soo saartaa force-ga meesha waxaan leenahay force waxaa lagu helaa main scale of x k-gana waa 20 newton per meter lagu dhuftaan leenahay 0.25 meter meter to meter meesha waxaa waaye waxaan leenahay 2.5 haddaan ku dhufano 2 waxaa waaye 5 meter markaan waxaan leenahay number 2 practice-kanaga waxaana la siiyey force-ga oo ah 500 newton kala baxo ah 10 cm macnaha kala baxan marka lagu sheegayana waa extant-ga markii la kala jaray marka oo u dhiganta 0.1 meter aan leenahay waxaan loo diray spring constant k marka waxaan leenahay k waxaa lagu helaa qaacidada f of x f tanada meeqa waa 500
oo newton 500 newton loo qaybshan leenahay 0.1 meter k waxa la mid tahay leen toban lagu dhuftay 500 waa 5 newton per meter waxaan tegaynaa example 1.5 mass-kana waxaa la siiyey 5 kg x displacement-gana waxaa waaye 0.2 meter ama 20 centimeter gravitation force waxaa waaye 9.8 meter per second waxaana lahay k soo saar oo spring constant waxaan leenahay k spring constant waxaa lagu helaa force oo loo qaybshay x oo displacement force maxaa ku heli jirnaa mass oo lagu dhufay gravitation oo loo qaybshan leenahay marka x intaan waxaa la mid ah force sababtoo newton intaan ka soo dhigay kg meter per second waa newton equal waxaa la mid tahay mass kana ka haysanaa waa 5 kg lagu dhuftaan leenahay 9.8 oo ah meter per second square loo qaybshan leenahay maxaan u qaybinaynaa displacement oo 0.2 meter k waxa la mid tahay 49 kg meter per second square oo loo qaybshay 0.2 meter waxaan leenahay 49 newton loo qaybshay 0.2 meter si aan tababarna times-10 leenahay tan times-10 490 haddaan lagu qaybino waxay noqonaysaa 245 newton per meter waxaan leenahay marka practice-kanaga example-ka 1.5 practice-kiisa waxaan la siiyey mass-ka displacement oo 0.2 meter iyo gravitational force k-da noqdo waxaan leenahay k-sa aan soo helay k waxa lagu helaa leenahay force oo loo qaybshay saan waxaan leenahay marka force waxa lagu helaa mass oo lagu dhuftay gravitation force waxay leedahay mass kana oo ah 4 kg lagu dhuftay 10 meter per second square force kana wuxuu mid yahay 40 newton ana 40 newton haysan waxaan leenahay k waxay mid tahay f kana oo ah 40 newton oo loo qaybshay x kana oo ah 0.2 meter this waxaa la banka ka saarayna times 10 ala tan maxaa la times 10 k waxay la mid tahay 400 u qayb waa 200 newton per meter practice kanaga su'aasha labaad gifankana wuxuu noo yahay f1 waxaan haysanaa 50 newton x kana waxa waaye 5 cm sidoo kale x2 kana waxa waaye 11 cm oo u dhiganta 0.1 meter tana waxa waaye 0.05 meter saas waxaan leenahay horta waxaan lahay sharaxaad ahaan waxaan leenahay force la isticmaal spring constant ka loo isticmaal force la isticmaal marka 50 newton ah waxay kala baxdaa laha 5 cm oo u dhiganta 0.05 meter waxaan lahay hadii la kala baxsho 11 cm force la isticmaala waa meeqa laba qaab waa sameyn karnaa inaan dhahno f1 hadii inta kala bixisay f2 x2 ga meeqa kala bixin oo dhahno f1 not conton newton waxay kala baxday 5 cm 5 cm kan waa bedelayna waxaan leenahay 0.05 meter meeqa kala bixinay 0.11 meter meeqa force kala bixinay you can get ina inta waxaan laakiin leenahay intaan markaan haysano waxaan heli karnaa k-ganada oo ah f of x taas waxay la mid tahay 500 oo newton loo qaybshay 0.05 meter inay la mid tahay saamboonta ugu saarna 100 ku dhufo kana 100 ku dhufo 5 loo qaybshay 5 loo qaybshay 5 waa 1000 newton per meter waxay dhahay k-gana maadaama spring constant aan haysano mooladan oo moolada isbedelin x tan kala baxshana 12 cm tahay f waxa lagu helaan leenahay isku dhufashada labadooda k times 6 oo la mid ah 1000 newton per meter lagu dhuftay 0.1
1 mitir oo la mid ah 110 newton